19 Febraayo waxaa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamida in tagay waxay ka cadeeyeen in ay u la wareegaan wax dawladuna aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas'uuliyadna saaranba qaybo kamida bulshada oo siyaasiyiin u badan waxay ku doodayaan ciidanku inay meeshii ay isha ku hayeen diiradda ku hayeen oo dagaalka shabaab ahayd inay ishii ka qaadeen oo hadda ay ku mashquuleen siyaasad Muqdisho ay joogaan marka arintaas carqalad ma ku noqotay ama maxaa ku idhaahdaa fursad ma u noqotay shabaab baa la dhihi karaa aad iyo aad u mahadsantahay horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed arrimaha siyaasaduna arrin ma quseeyo ma aha siyaasaduna waa siyaasad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xaqiiqatan dadka fikirka noocaas doonaya mar walba inay bulshada Soomaaliyeed ay ka gadaan ama ay fikirka noocaas u heesta inay mansabka iyo ayagu ay doonayaan inay ku gaarayaan inay dacaayadeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama guud ahaanba ciidamada qaranka ayagoo bixinaya dhididkooda iyo dhiigooda inay ku tilmaamaan inay cid gaar u adeegayaan taas horta waa iska nasiib darro waxay qayb ka tahay runtii dadka fikirada guracan ay ku jiraan bulshada Soomaaliyeed kamida dhihi ma karna hadda siyaasi ma dhihi karna xaqiiqatan dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo laakiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ciidan qaran waxay u diyaarsan yihiin badbaadinta qaranka Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta sharafka iyo karaamada muwaadin kasta ee Soomaaliyeed waxay u diyaarsan yihiin ilaalinta muxuu ahaa ay xuduudaha dalkan uu leeyahay taas ayay waxay ugu jiraan diyaar garow gacanna waxay ugu diyaar garoobayaan taas oo howlahooda ku wataan gacanta kalena bulshada Soomaaliyeed ayay ugu adeegayaan oo cadawga dhibaatada ku hay ay uga dulqaadayaan marka fikirka noocaas dadka aaminsan xaqiiqatan waa fikir aan ka turjumayn xaqiiqada waa mid aan ku saleysnayn waaciga dhabta oo jira waa mid aan hadaafta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay iyo aragtida uu ku shaqeynayo mid baalmarsan way taas aan dhihi karnaa ayagana waxaan leenahay marnaba yeysan ilaabin ciidankan uu jiri doonaa uu soo jiriyay uu shaqay doonaa cid dadka uu adeegayo u shaqeynayo qayb ka yihiin dadka fikirka noocaas uu ku jiriyo marka waxaan leeyahay Ilaahay ha garabsiiyo waxa ay ka mudan yihiin laakiin maxaa lagu aamini karaa inay ciidanku siyaasadda ka madax bannaayeen saad u dhigtay waxaa lagu aamini karaa shaqooyinkooda maxaa lagu aamini karaa haddaan hadda ku weydiiyo Haarun maxaa lagu aamini karaa inay siyaasadda ku dhex jiraan wax daliil ah oo la dhihi karo waxaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed siyaasadda qayb uga yihiin ma jiraan maya xaqiiqatan marka waxaa lagu aamini karaa hawsha ay hayaan waxaa lagu aamini karaa sida ay u shaqeynayaan iyo aragtida ay xambaarsan yihiin waa gartay qodobka haddaan dhinaca kale marka loo dhigana sideedaba siyaasaddu ciidanka ayadaa dhista ayadaa hagta haddii marka laga fiiriyo dhinac xun oo loo eego dhinac xun laga eegayo dee qofka ka eegayo waa qof muxuu ahaa ii sheega aragtidiisu aysan nadiif ahayn iyo aqliyadiisu waay haddaanba toos ku weydiiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lug miyay ku lahaayeen dhacdadii 19 Febraayo ee Muqdisho horta 19 Febraayo oo laga sheekeynayaan la isla dareensanayba 19 Febraayo sida aad la socotoba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dadkuna dad qaarna waxay ku tilmaamayaan mas'uuliyiin ama musharaxiin dalkan u taagan ama horena mas'uuliyada kale uga soo qabtay in la weeraray waxna waa xaqiiqada dhabta oo jirta waxay tahay oo la socotaan 19 Febraayo waxa dhacay 19 Febraayo waxa dhacay dad kamida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo darajooyinka ugu sareeya leh ayaa magaalada Muqdisho caasimada qaybo kamida in tagay waxay ka cadeeyeen in ay u la wareegaan wax dawladuna aysan jirin waajib ayaa naga saaran xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kamida ee ku kacda wax baalmarsan sharciga iyo nidaamka u yaala dalka iyo shuruucda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed cid kasta ee baalmarta inaan talaab ka qaadno waa mas'uuliyadna saaranba laakiin ciidanku may lug may ku lahaayeen dhacdadaas ciidanka xoog dalkeed adiga taliyahawta
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhacdada adii sheegaysaan aan isla fahmin dhacdadu waa dhacdadii waa dhacdadii 19 Febraayo ka dhacday magaalada Muqdisho xabadii ka dhacday daljirka Dahsoon ka horeysay maalintii banaanbax ay dhigi lahaayeen siyaasiyiinta musharaxiinta mucaaradka iyo maalintii Jimcaha ku xigtayna sii socotay horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed banaanbaxay kuma shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya shaqadiisu waxay tahay waa la yaqaanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mas'uuliyad iyo waajibaad saaran waajibaadkoodu waa qayaxan yahay waajibaadkoodu waa ilaalinta badqabka xuduudaha dalkan badcir iyo dhul waa ka qayb qaadashada masiibooyinka dabiiciga ah haddii dalkan ay ka dhacaan waa gacansiinta hay-adaha amniga haddii looga baahdo marka haddii xataa ay qayb ka yihiin waa mas'uuliyad saaran in hay-adaha amnigu hadday gacan uga baahdaan wixii lid ku ah amniga dalka ama qalqal gelinaya inay gacan ka siiyaan mas'uuliyad saaran waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laakiin qayb ma ka ahaayeen marka dhacdadaas taas de inaad hadda aad weydiiso waxaan u maleynayaa inaysan ku habboonayn waa gar waxa kaloo dhacdooyin kale la soo qaato waxa kamid ah xaaladda siyaasadda gobolka Gedo oo dabcan sidaad la socdo dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland ay ku kala fikrad duwan yihiin Jubbaland iyagu waxay ku doodaan in ciidamada la geeyo gobolka Gedo loo geeyo arrimo siyaasadeed ee loo geeynin al-shabaab jawaabtaada horta aad iyo aad u mahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed horta waxa dhacay way arkayaan dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland siyaasadda wayna isku waafaqsanaa karaan wayna isku ku kala duwanaa karaan taas hadda kale howl anaga ka ciidan ahaan noo taala ma ahan laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxay joogaan gobolka Gedo waxay joogaan gobolka Jubbada Hoose Kismaayo joogaan oo caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubbaland u ah marka anu hadda ma garan karaba wax gobolka Gedana ka xaaraantinimeynaya Kismaayo oo caasimadii ku meel gaarka ahayd Jubbaland u xalaaleynaya taa ma garan karaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hal talisaa laga xukumaa hal mas'uuliyad ay fuliyaan hal waajibaad ay leeyihiin marka hawlahaas waa hawlo muxuu ahaa ii sheeg iska cad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna mas'uuliyadiisa qayb ka ah in ay meel kasta ee markaa gacantooda ay gaari karto xuduudaha dalka kamida inay gaarsiiyaan waa mas'uuliyad saaran wixii ka socday hadda intay meesha joogeenna waa wax cid walba ay iska garan karto marka ma ahan wax u baahanba in dadka Soomaaliyeed lagu marin habaabiyo oo meelo aysan xaaladdu markaa aysan taagnayn in lala aado wax u baahan ma aha way aan ku soo laabto diyaar garowga ciidanka waxa in badan laga hadlaa AMISOM way baxaysaa ciidanka Soomaaliya diyaar ma u yihiin inay AMISOM kala wareegaan mas'uuliyadda wadanka su'aashaas adigaan ku weydiinaya ciidan diyaar u ah mas'uuliyadda inay AMISOM kala wareegaan ma leedahay dawladda Soomaaliya diyaar garowgeeran ku jirnaa way noo socotaa waa gartay marka xilligan miya AMISOM inay baxdo diyaar miyaad u tihiin xilliga AMISOM baxaysa horta ma ahan xilli hadda aan halkan uga hadlayo ma ahan AMISOM dalkan nidaam ay ku timiday mandate ku joogtaa mandate-kaasuna waqti uu leeyahay kaasaana lagu dul shaqeyn doonaa waqtiga munaasabka ah annaguna aan muxuu ahay ii sheeg mas'uuliyadda aan leenahay aan ka qaadanayno ayayna dhici doontaa haddii Ilaahay ku laado